بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي وسلامتين ومعد العتيق سود وادا ما أنت هلكن waxaanu ka galeynaa darsi cusub ayaanu halkan ka galeynaa maadaama uu noo dhamaaday darsigii hore oo ahaa asmaa'ul ishaarati lil qariib ay noo dhamaatay hadda halkan waxaanu ka galeynaa asmaa'ul ishaarati lil baciid baanu ka galeynaa darsigeedii koobaad mawduuceenu maanta markuu wuxuu yahay magaciisu daaka wa amthilatuha daaka ha iyo tusaalayaasheedii hagaag darsigan hore ka galeynaa daaka saabunun kaasi waa saabuun daaka saabunun kaasi waa saabuun saabuun waa la yaqaana Soomaa waa tii qubayska lagu qubaysanay tii lagu qubaysanay waxa la yiraahdaa saabuun Soomaalida inkastoo ay kala duudo ay tiraahdo saabuuntana waa mid lagu qubaysto marisna ay u taqaano mid dharka lagu dhaqo oo dharka un kaliya loogu tala galay ay maris u taqaano hagaag marka tani waa tii qubayska saabuun daaka sunduuqun kaasi waa sanduuq daaka sunduuqun kaasi waa sanduuq sanduuqi taqaanino birta ka sameysnaa ama alwaaxa ka sameysnaa way daaka saxnun kaasi waa saxan daaka saxnun kaasi waa saxan saxankii cuntada lagu cunayay way kadalika waxa jira eraygan eray la macna ah oo saxnul haram la yiraahdo saxanka haramka la yiraahdo oo maaha saxan marka wax lagu cuno haramka uu leeyahay meel banaan haramka inta lagu wareegto meelahaas oo kale ba saxan la yiraahdo markaas laakiin kan hadda waa saxanka cuntada lagu cunayay hadaad marka biri aragto ayadoo la leeyahay saxnul haram lagu leeyahay ha u maleeyeen saxan gaar oo haramka uu leeyahay oo wax lagu cuno oo gaar ah saas u maleeyeen iska ilaali daaka sabagun kaasi waa rinji daaka sabagun kaasi waa rinjigi guryaha la marinayay way kaas baa waxa la yiraahdaa sabagun rinji daaka sursurul layli kaasi waa wariiq daaka sursurul layli kaasi waa wariiq ma leeqana wariiq waa bahal habeenkii oo kaliya qayliya habeenkii buu qayliya wariiq baa la yiraahdaa waa madow yahay sursur hadaad kaliya tiraahdo sursurun baranbaray noqotaa sursurul layl hadaad tirahdana wariiqa bahalka la yiraahdo ee madow ee booda sida wuxuu u boodaayo kale bahalka Soomaalidu yiraahdaan haratigeelaha ama anyaxa loo yaqaano ama ayaxa kaaratide loo yaqaano oo kale ayuu u boodaa waa madow yahay habeenkii buu naqayliyay waa lagu gartaa qofkii u baahan YouTube ka duu galo sursurul layl oo ku qoro uu arkayaaba dhawaaqiisana uu dareemaya marka uu arki doono uu dhawaaqa hagaag daaka sabaaqun kaasi waa rinjiile daaka sabaaqun kaasi waa rinjiile hadda maxaan soo marnay sabaaqun rinji sabaaqun rinjiile waa ninkii rinjiga marinayo rinjiilaha dhimanku isku mid maaha ninna waa fuundi ninna waa faryaamo ninna waa korontayste oo guriga korontada galiya ninna waa rinjiilo rinjigu si fiican u yaqaana ninna waa nin mutaleela ah ama marmarle ah marmar baalka Iiraan ama mutaleelka Iiraadan buu ku shaqaleeyahay marka sida uu ogaada daaka salunul hilaqa kaasi waa salonka tinta daaka salunul hilaqa kaasi waa salonka tinta ama timajaraha kaartide dadku wuxuu yaqaanaan riisle dad baa u yaqaan riisle dad baa u yaqaan dhulka iyo Puntland riisle laga yiraahdaa xamar imeelahana timajare baa looga yaqaan ama waxa looga yaqaanaa inuu ahaabaan u maleynay eray English bay ku qorqortaan barbar inuu ahaa in kala ma aqaan magac noocaas ku qortaan marka waa ninkii timajaraha ahayo tinta jaray daaka sibanun kaasi waa qandhicil daaka sibanun kaasi waa qandhicil ma la yaqaana qandhicilku waa bahal tinta gala wuxuuna ka dhashay marka waxaana ka dhasha asaga andhe waxa asaga ka dhasha injirta waxa loo yaqaano siban waa qandhicil waxa qandhicil kaliya waa bahal cadcad oo tintaada ku dhalanaya gudaheeda haduu bahalkaas marka hadhowdii uu muddo kugu sii jiro wuxuu noqonayaa injir muxuu noqonayaa injir buu noqonayaa magac kale uu qaadanaya marka siban baa la yiraahdaa qandhicil baa loo yaqaana hagaag daaka dayfun kaasi waa marti daaka dayfun kaasi waa marti baa la yiraahdaa marti waa hal qof oo marti ah oo ku soo martiyay ama habeenna ku yimaado ama maalin ha ku yimaado hagaag inkastoo afka Carabiga dayf
ayadoo marti la yiraahdo habeenkii markuu qofka martida uu socdana waxa loo yaqaanaa taariq baabadana loo yaqaanaa hagaag dhaaka dabacun kaasi waa dhurwaa ama waraabe dhaaka dabacun kaasi waa dhurwaa ama waraabe maxaa la yiraahdaa dad baa dhurwaa u yaqaana ama waraabe labada magac baa loo yaqaanaa sida badan baadiyuhuna ku nool yahay meelahan la yiraahdana beeraha ay dadku ziyaartaan badana waa lagu soo qabtaa bahal afweyn bahda eeyahan lagu tiriyaa waxa lagu tiriyaa fasilatul kilaab waxa la yiraahdaa bahda eeyaha lagu tiriyaa bahda eeyaha ayaa lagu tiriyaa ilaan xayawaanado dhan waa kala marka bahdaas baa lagu tiriyaa dhurwaa ayaa la yiraahdaa ama waraabe ereyga dhurwaa maxaa laga keenay miitaa macnaha Soomaaliya hadaan idin faadiyo dhur waa faa'iido iyo liibaan dhur sida Soomaaliga dhur hadaa kaligeed maqasho waa liibaan iyo isheeg muxuu ahaa baraara waana waa taqaanaa waa waxaan waa oo ha helin waxa la isku geeyay marka dhurwaaga marka wuxuu sameyn jiray ama waraabaha baalka la yiraahdo xooluhu qaadan jiray markaas waxa la dhigi jiray idan ma la dhurwaa bimaana liibaan waa oo khayr waliga ha arag ka bacdi magaciya ku dhago waxa la yiraahdo dhurwaa muxuu ahaa marka waa laba eray ka kooban waa dhur iyo waa oo wixii inaad weysid ah oo habaar ahaa si loo lahaa dhurwaa baa loo bixiyay marka macnahaasna waa idin faa'iideeyay jazaakumullahu khayr ahsana Allahu ilaykum maanta darsigaas cusub baanu qaadanay insha Allah ka faa'iideysta waanu isla joognaa insha Allah darsi cusub oo kale insha Allah waxay noo noqonaysaa beritoole 3 darsi baanu qaadanaynaa insha Allah hadii ilaahay caafimaad iyo ladnaan nagu gaarsiiyo ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية درسيا هداد كدغيسانيسو يوتيوب-ka oo hadda ay kuugu horeyso 10 kan oo warqad ah wuxuu yaala commentiga ugu horeeya hadii aadan ka dhageysanino Telegram-ka naga socotana de waxa tahay ardadii loo baahnaa soo dhawow macadka la faafiyo adaalu ala alkhayr ka faa'ilihi kun jeer iyo kow jeer baan idin sheegay insha Allah waxa weeyde ka faa'iideysta dacmina sameeyo dacmigu waa labo buu noqdaa ya imma inuu noqdo dacmi maali ah taageero maal iyo hanti ama uu noqdo dacmi hadal iyo kalaam iyo kelimad dacmul kalima inuu noqdo oo wad in lagu saacido ah ama inuu noqdo dacmul muxuu ahaa la yiraahdo afcaal in ficil lagu caawiyo marka dacmi sameeyo insha Allah ala alaqal inta sameeyo ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته